arkay bay leedahay anigoon isxakamayn karin aan awoodin in aan iska dhiciyo qofkan isaga ah la socodkiisa waxaad moodaa inuu qalbigayga kala baxay jirkayga gudihiisa oo isaga uu maamulo wax walbuu ii sheega waxaan u qaatay inay run tahay laakiin markuu igala hadlo inaan isguursanayno waxaan mooday gabadha keliya ifka uu jecel yahay guurkana uu ka doonayo inaan aniga ahay inaan ku wada noolaanayna hal nolol hal dabaqad oo aan barwaaqo iyo farxad cimriga ku wada dhammaysan doono waan rumaystay wax walbuu ii yidhaahdo wuxuu igu dhihi jiray boqorada noloshaydiyey hadalkaa markaan maqlo wax aan adduunka jirin baan ismoodsiiyaa jacaylkayga xuduuddii buu ka baxay maalin maalmaha ka mid ah waxa uu ahaa maalin ii xun maalin mugdi noloshayda ku ah waxa aan burburiyey noloshayda waxaan ka takhallusay mustaqbalkayga waxa aan ceebeeyey dhammaan familkayga ayaan dunida dadka ku nool ka hor ceebeeyey waan raacay sida caadada ahayd ninkaan u raaci jiray wuxuu leedahay gabadhan siduu ii kaxeeyey wuxuu i geeyey qol aad iyo aad loo hardhay oo firaash fiican la dhigay waan galay gurigii waan wada fadhiisannay waan sheekaysanay aniga iyo isaga un baan nahay waxaan xusuusan waaye maalinkaa isaga xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam ee ahaa rag iyo dumar yaysan keligood meel wada fadhiisanin haddii kale shaydaan baa saddexaynayo laakiin shaydaankii baa qalbigayga waxa uu ku camiray erayada ninkan ka soo baxaya ee macaanka badan waan fadhiistay isaga ayaan eegayaa isagana wuu eegayaa sidaan isu eegaynay markii dambe waxaa ina daboolay wixii ina daboolay ee foosha xumaa ma ogi bay leedahay waxa dhacay waxaan ka war helay anigoo aad moodo inuu ruuxan wax allaala wuxuu doona iga sameeyey oo aan waayay maskaxdaydii jirkaygana anigoo qaawan baan ka soo toosay wax allaala waxaan adduunka u jeclaa noloshayda qiimaha ugu badnaa ayaan meeshaa ku waayay waan soo booday sida qof waalan war maxaad igu samaysay baan idhi wuxuu igu yidhi habaqin xaaskaygii baa tahay sideen xaaskaaga ku noqdaa ma adiga ayaa i guursaday oo weli i mehersaday wuxuu yidhi mar dhow baan ku mehersan doonaa guriganagii baan aaday anigoo xaalkayga aan la ogeyn sida uu yahay lugahayga awood iyo itaal uma laha inay iqaadaan oo waan socon waayey jirkaygii olol baa ka soo baxay ilaahayow maxaan sameeyey maxaa igu dhacay baan isweydiiyey adduunkii baa mugdi igu noqday indhahaygu waxba ma arkaan waxaan bilaabay inaan ooyo si aada aan u ooyo waxaan ka tegay waxbarashadii xaaladaydii way xumaatay oo aad iyo aad bay u liidatay xaaladayda laakiin qof ehelkayga ka mid ah ma uusan ku guulaysanin sababka aan oga haray waxbarashada iyo noloshayda waxay isku beddelayso marba maalinka kasii dambeeya jirkayga sida uu noqonayo hase yeeshee hal rajo ayaan qabay oo rajada aan qaba waxa ay tahay ballankii uu ii qaaday ah inuu guursanayo maalmo ayaa ka soo wareegatay oo aniguna aan iscanaananayo wax aan sameeyo aanan garanaynin buuraha wax ka culus baa isaaran waxaan isweydiiyaa maxaa kugu dhacay maxay ahayd waxa dhacay waa maxay waxa noloshaada burburiyey anigoo inta ku fakaraya ayaa telefoonka guriga soo dhacay wuxuu ahaa codkiisa meel fog qof ka soo hadlaya ayuu ekaa wuxuu igu yidhi waxaan doonayaa inaan is aragnoon kulanno arrin muhiim baan ku hayaa aad baan u farxay waan takbiirsaday waxaan mooday shayga muhiimka uu ii hayo in ay tahay arrinta guurkanagi inuu ka hadlayo ninkii isaga ahaa waxaan isku qaabilnay bay leedahay gabadhan meel baan isku qaabilnay oo guri ah kiig aan ahayn markaan wada fadhiisannay waxaan arkay wejigiisa inay ka muuqato calaamado aan farxad lahayn inuu u eg yahay nin xumaan kala damacsan baan dareemay wuxuu igu yidhi wax walba inta aan la samaynin ha fakarin arrin guurna ha ku fakarin weliga ay allaha waxaan doonayaa ani adiga inaan saaxiibtimo ku wada noolaano wax shuruuda ha isoo hordhigin gacantaydii baan madaxa saartay waxay leedahay wejigii baan ka dharbaaxay waxaan ku ori balaaya kugu dhacde ma waxaas ayaad usoo dhigatay oo intaas miyaad iigu yeertay waxaan ku ori waxaan moodayey in aad khaladkii aad samaysay aad saxayso laakiin waxaan arkay inaad tahay nin aan qiimo lahayn
akhlaaqna aan lahayn waxaan ka soo baxay gurigii anigoo ooyayo wuxuu igu yiri si dabacsan fariiso fadlan soo laabo oo fariiso waxaan arkay markaan sidaa u soo jeestay isagoo gacanta uu ku hayo cajalad TV faraha uu kor ugu hayo isagoo ugu jeesjeesayo markaasuu eray aan ka naxay jirkayga dilaaciye igu yiri wuxuu yiri noloshaadii iyo mustaqbalkaagii cajaladan ayay ku jirtaa waxaan ku iri maxaad sheegaysaa oo cajalada gudaheeda maxaa ku jiro wuxuu igu yiri kaalay aan ku tusiye cajalada gudaheeda wax ku jiro waxaad arki doontaa wax kaa yaabiya waan raacay cajaladii si aan usoo daawado waxaan arkay bay leedahay intii miirkayga uu maqnaa wax allaala wixii jirkayga uu ku sameeyay ee xaaraan ahaa oo cajalada ku duuban markaasaan waxaan ku iri doqon maxaad igu samaysay saqajaan baa tahay makaamirooyin qarsoon baad xaafadda ku xiratay oo waxaad duubaysaa wax allaala waxaad dadka ku samayso jirkooda mustaqbalkooda aad ku baabi'iso markaasuu igu yiri cajaladan waa hubka keliya u adeegsan karo si aan noloshaada u xakameeyo ama aan u burburiyo waxaad ahaanaysaa qof aniga iga amar qaato waxaad noqonaysaa xilli walba xilligan kuu baahdo qof ii yimaado maalinkan kuu yeerto waa inaad ii timaadaa waan ku qayliyey waan ooyey laakiin waxay leedahay arrinta gacantayda kuma jirto oo aniga waxaan samayn kara ma laha haddaan ninkan amarkiisa diido dhammaan qoyskayga sumcadoodii baa bannaanka soo baxayso waxaan idhi waa yahay maxay tahay haddaba maxaad iga doonaysaa wuxuu igu yidhi iska tag aniga ayaa kusoo wacayo haddaba maxay noqotay natiijadii ka dhalatay waxaan noqday bay leedahay gabar la haysta ah gacantiisa ku jirto xilli allaala xilliguu doono ayuu ii yeelaa nin allaala ninkuu doono lacag ka qaadaa markan guriga imaadana ninkaasi ayuu yidhaahdaa waxa uu rabo u samee lacagtaa isaga sidaa ayuu ku gurtaa waxaan ku dhacay wasakh waxaan ku dhacay bohol aanan ka soo bixi karin noloshayda waxay isu beddeshay nolol wanaagsan iyo gabar aanan isu beddela gabar dhilaysata ah jirkeeda la iibsado qoyskaygana waxba kama oga waxa aan samaynayo way igu kalsoon yihiin sida gabar aqoon-yahanada ah cajalkii baa meel walba gaaray wuxuu ku dhacay wiil ilmo adeer aan nahay gacantiisa arrintii baa qaraxday labadii dhaleen baa ogaadeen qoyskaygii aan ka dhashay oo magac ahaan aan ka soo jeeday baa ogaaday fadeexadii baa meel walba gaartay oo adduunka meel walboo laiga yaqaano guriganagii waxaan usoo hooyay ceeb waxaan ka cararay meeshii si aan noloshayda bal u badbaadiyo waan isqariyey oo si aan la ii arag waalidkay iyo walaalahay waxaan ogaaday inay magaaladii ka carareen oo meel kale ay u guureen waddan kale waan ka daba tegey anigoo ceebtii iyo fadeexadii jiidanayo waxay leedahay meel walbana waxaa la iiga sheekaystaa in aan ahay gabar dhilla ah meel walba waxaa yaala cajaladii aniga iyo wiilkii aan samaynay ama aniga iyo mid kale aan samaynay waxaan ku dhex noolaa guryaha dadka qurumada iyo saqajaamada dhexdooda ayaa cajaladahayga meel walba ay yaalaan laakiin kaa doqonka ee nacaska ah waa midka iga dhigay sida boombale qof walba wuxuu rabo uu ku samaynayo dhaqdhaqaaq ma awoodi karo sababtoo ah isaga ayaa i xakameeya cajaladahayga haya wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah sababay burburinta guryo fara badan burburinta sumcad gabdho fara badan waxaan go'aansaday in aan ka aarsado maalin maalmaha ka mid ah ayaan jaanis ku helay waxa uu ii yimid isagoo sakhraansan oo cabsan fursadii baan ka faa'iidaystay midi baan qaatay oo wadnaha ayaan dalooliyey waxaan ku idhi ibliis baa tahay bini aadam ma aanan dilin shaydaan baan iska dilay oo bini aadam iska soo dhigay waan ka takhallusa shartiisa si uusan mar dambe gabar muslimad ah uusan u ceebaynin sharafkeeda uusan uga cayaarin waxaan bilaabay inaan ka qoomameeyo dhibkii qofkaa isaga uu igu sameeyey iyo dhibaatadii aniga aan ku jiray iyo dhibka hadda aan ku suganahay oo ah in aan xabsi ku jiro oo aan ahay qof dambiilo oo gacan ku dhiigla ah mar walbo aan xusuusto cajaladii videoga uga duubay waxaan maleeyaa derbiyada xabsiga xitaa inay ku xiran yihiin kaamirooyin oo ma awoodi karo jirkayga inaan ku qubaysto musqulaha qaar qisadaydii waxaan u qoray arrintanna u sheegayaa si ay gabar walba oo muslimad ah ugu noqoto cibro ay ku tusaale qaadato aysan nin damba oo bini aadam ah gabar ugu kalsoonaanin ama aysan guri si keliya aysan ula gelin warqadaha la isu diro ee jacaylka ka sheekaynayo ee qalimaanta kala duwan iyo ubaxa loofka kala duwan lagu